السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelka Maashay. Insha Allah Ta'ala maanta waxaan idinka sheekeyn doonaa qisa yar oo kooban oo ku saabsan nin boqor ah iyo wasiirkiisii. maalin maalmaha ka mid ah nin boqor ah iyo wasiirkiisii ayaa qasrigii boqortooyada ka soo baxay iyagoo aan cidna u sheegin oo aan ciidana daba socon si ay u soo ogaadaan bulshada ay u taliyaan xaalka ay ku sugan yihiin. haddaba iyagoo magaaladii dhex socda ayaa sidii ay u socdeen waxa ay ku soo baxeen guri yar oo magaalada dhinaciisa ku yaala. gurigaana waxa deganaa oday weyn. odaygii markuu arkay labada nin uu soo dhaweeyay oo si fiican u marti qaaday. aduu xogaa markay sheekaysanayeen odaygii cuntadii loo keenay ay cuneen ayaa ninkii boqorka waxa uu ku yiraahday odaygii, nin weyn oo ay xigmad ka muuqataa hebel maxad nagula talin lahayd. odaygiina waxa uu ku yiraahday harumaysan boqorada xataa haddii ay xilku dhiibaan. ninkii boqorka ahaana isagoo muujinaya inuu xikmadda la dhacay ayuu intuu lacag siiyay buu ku yiraahday mid labaadna igu dar. odaygiina xikmaddii labaad ee uu siiyay waxay ahayd ha aaminin dumarka xataa haddii ay ku caabudaan. ninkii boqorka ahaa mar kaloo haddana lacag siiyay odaygii yara oo waxa uu ku yiraahday xikmad kalena i sii. odaygiina waxa uu ku jawaabay ehelkaagu waxay ahaanayaan ehelkaaga xataa haddii aad halaag ku sugan tahay amba aad khatar ku jirto. markii ay saddexda xikmadood ka soo qaateen odaygii yaraa way ka yimaadeen si ay ugu noqdaan qasrigoodii. haddaba intii ay dhexda sii socdeen ayaa ninkii boqorka waxa uu muujiyay inaanu ka helin saddexda xikmadood ee uu odayga yarsiiyey. waxa uu ninkii wasiirkiisa ahaana ku yiraahday aniga waxaan iska hadal bay ahayd xikmadna ma ahayn inaga daa. ninkii wasiirkiisa ahaana isagoo doonayay inuu boqorka tusiyo in saddexda xikmadood anfac lahaayeen ayaa isla markii ay qasriga saa ugu soo noqdeen boqorka iyo ninkii wasiirka ahaa. ninkii wasiirka ahaa waxa uu si qarsoodiya u soo xaday shimbir uu boqorku lahaa markaasuu gabadhiisa u geeyey. waxaana uu ku yiraahday qariyo yaani cidna arkin. iyadana siris ay lahayd baa intuu ka qaaday wuu ku yiraahday keen dhowr xaboo luula baan kuu soo gelinayay. iyaduna intay farxday markiiba u dhiibtay. aduu haddaba marka muddo saa lagu jiray boqorkiina uu shimbirtiisii ka quustay ayaa maalin dambe intii gabadha u timaaday ninkii wasiirka ahaa ku tiraahday siliskaygii meeyey. isaguna wuu iska aamusay waxba muu sheegin waxna kuma odhan. gabadhiina aduu hinaasoo intuu qaaday bay istiraahday malaha gabadh kale uu geeyo. aduu markii su-aashii ku celcelisay isaguna waxba u sheegi waayey uu ka aamusay. markii dambe intii boqorkii u tagtay gabadhii bay ku tiraahday boqorow waa kan shimbirkaagii oo ninkaygaa soo xaday. boqorkiina intuu markiiba xanaaqay buu yiraahday ii soo qabka ninkan wasiirka oo dildilayaabe. markiiba ninkii wasiirka ahaa baa la soo qabtay dilkiisii baa la diyaariyey. aduu muddo yar kadib magaalada bartankeygii baa la baneeyey si uu boqorku xaadir u noqdo marka ninkan qoorta laga jarayo. isla markaana ninkii wasiirka ahaa waalidkiisii iyo ehelkiisii baa maqlay inuu boqorkii iclaaniyey dilka wasiirka. markiiba intuu boqorkii u imaaday ninkii wasiirka ahaa aabihii ayuu ku yidhaahday wax allaaliya waxaa madax furashay aad doonayso oon ku ogolahay laakiin wiilkayga ha dilinoo dilkaa baaji. xataa ninkan wasiirka aabihii waxa uu ku yidhaahday boqorka haddii aad isaga dilayso aniga bartiisa igu bedelo anigay dilo isaga iska sii daa. laakiin boqorkii wuu diiday. aduu haddaba ugu dambayntii ninkii wasiirka ahaa waxaa la keenay goobtii qoorta lagaga goyn lahaa. markaasaa lagu yidhaahday maxaa kuugu dambeeya ee aad odhan lahayd inta aan qudha lagaa jarin. ninkii wasiirka ahaana intuu boqorkii eegay ayuu ku yidhaahday boqorow ma xasuusataa maalintii aynu labadeennu magaalada soo marmaraynay ee aynu ku soo baxnay gurigii odaygii yaraa ee xikmadda badnaa islamarkaana aad aduu ka codsatay inuu inala taliyo. bal haddaba iminka shakimuu kaaga jira waxa uu inagula taliyey in ay run ahaayeen. ninkii boqorka ahaana waxa uu gartay inuu wasiirku waxaanoo dhan u sameeyey si uu isaga ugu qanciyo in ay xikmadahaasi run ahaayeen. intaa kadib marka uu boqorkii ogaaday inaan wasiirku khayn ahayn ee uu doonayay inuu isaga u wax fahansiiyo ayuu xilkiisii iyo mansabkiisiiba ku soo celiyey. welibana waxa uu ka dhigay wasiirada ugu dhow isaga agtiisa. waayahay haddaba sheekadeena maanta bartaasi ku joogtaa tan iyo inta muuqaal dambe ku kulmi doona insha allahu tacaala waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.